السلام عليكم dhamaan qaybiyaashayaas meel kasta joogtaan islaamaya waxaan rabaa in kulli wadaago qaabka qofka retail ahaan alaabta markuu iibinayo ama qof alaab u dalbayo qaabka uu marayo ayaan rabaa video inaan kula wadaago ugu horeyn waxaan tagi doonaa ama isticmaali doonaa appka loo yaqaan Vshare appka Vshare ayaan tagi doonaa dabcan Soomaaliya ayaa ku dooran markaa soo gasho ama Kenya ama Soomaaliya ku dooran baan dhaano dan waxaad tagaysaa qaybtaas my center kadib waxaad tagaysaa qaybtan setting ayaa tagaysaa halkan waxaad ka dooranaysaa meesha qoran tahay Soomaaliya select country wadanka aad rabto inaad qofkaas ugu adeegto ama alaabta ugu dalabto ayaa dooranaysaa okay hadda waxaan dooranaynaa Imaaraadka ayaan dooranaynaa ama dooranaynaa marka Dubai dabcan waxay noo soo baxay marka store-kii Dubai ayay noo soo baxay waxaan tagi doonaa salada ayaan tagi doonaa qaybta salada markaan tagno halkan waxay noo yeelaan marka barortidii customer-keena alaabta u baahnaa halkan ka dooraynaa marka alaabta u baahnaa halkan ka dooraynaa for example calcium ayuu dalbaday ama barortida loo soo qoray kamid ahaa marka consultation iyo loo sameeyay la talina caafimaad loo sameeyay then hadana waxaan dooraynaa code receipt yani okay hadda waxaan sidoo kale dooran doonaa okay sell ayaan dooranay inta xabo oo qof uu qaadanayo qaybta saakarkayso halkan kadib saladii wax ka soo doorato saladay ku iimaanayaan then adana shay kala dooranayna yani qof alaabta dalbanayso badan karo yeelan karaan okay marka adna uu doorto aan doorno qaybtan aan doorno kadib waxaan sameyn doonaa check out ayaan dhigi doonaa check out markaan dhaano waxay noo soo dhamaan wixii aan select gareysnay barortidii aan dooranay oo dhan ayaa inoo muuqda qaybtaas shay kasto inta haba aan ka dooranay ayaa qaybtan ka arkaysaa then qaybtaas ku reference by myself haddii aad iib kasta ayaa rabto in ID card-kaaga uu soo galo oo marka hore ID card-kaaga systemka Vshare-ka ku jiray okay ba sidiisa u deynaysaa haddii qof kale ID kale aad ku shubaysaa oo baahantay ID kale ku shubto waxaad taabanaysaa meesha qoran tahay by others marka by others taabato halkan ku soo baysaa ID-ga hadda Vshare-ka ku jiray ayaa bedelaysaa waxa ka dhigi doonta ID-ga kale aad ku shubi doonto iibka ku shubayso halkan waxa ku bedeli doonaa ID-ga kale dan markaan qorno qaybtan waxa taabanay check taabanayna dan waa ka qofkii kale aad rabto inaad systemkiisa ugu shubto magiisa iyo ID-giisa ku soo been hadda marka waxaan u gudbaynaa inaan marka order-iska iyo message checkno kadib waxaan taabanaynaa check out ayaan taabanaynaa marka check out taabano waxay noo soo saaray form-kan ayuu noo soo saaraya alaabtaan soo dooranay qaybtan marka waxaan tagi doonaa new address yani address baan gelinaynaa address qofkan alaabta loo dalbayo meesha uu joogo alaabtadan iibinayno waa retail order retail yani lacagta maanta dhigay systemkaaga oo soo geli doono ayuu noqon doonaa BV-ga uu ku soo geli doonaa marka qofka marka waxa meesha uu joogo ayaan marka halkan form-kii ku buuxinaynaa qaybtan waxaan tagi doonaa address markaan taabano halkan waxaa gelin doonaa qaybta koowaad magaca qofka ayaanu gelin doonaa then waxaan gelin doonaa qaybta labaad qaybta koowaad waxaan gelin doonaa magaca qofka ayaan gelin doonaa qaybta labaad wuxuu qofka magiisa labaad ayaan gelin doonaa then halkan waxaan ka dooran doonaa wadanka uu joogo for example Bahrain buu joogo saan kasoo qaad Kuwait Bahrain ama Khaliijka qaybo kala duwan ayuu joogo Middle East meesha rabaa ka joogo halkan waxaan gelinaynaa marka numberkiisa marka qaybtan si gaar ah si xogtiisa u qosaysaa qofka xogtiisa si gaar ah u qosaysaa halkan marka delivery-ga halkaas toose oo loo sameyn lahaa ayaa halkan ka dooraysaa yani shopping address-ka ka gelinayna waxaan doonayaa free ayaan doornay dan waxaan gelin doonaa street qof meesha uu joogo yani address-ka qofka ayaa halkan gelin doonaa tusaale waa dhahnay Bakaro Street ayaan ku qornay just waa form un baan buuxinaynaa then isla sidoo kale sameyn doonaya address-kii baan gelin doonaa qaybtan zip code ayuu qof gelinayaa alaabta meesha boostada loo soo dhigi lahaa numberkii boostada waa yani inaga waxaan gelinay furaha Soomaaliya gelinay then marka xogtaasi sidaan aan u buuxino form-kaas aan u buuxinaa waa contact information-kaas aan sidaa u buuxino oo magaca qofka iyo magaalada uu joogo telephone numberkiisa email-kaaga aan soo gelino alaabta meesha delivery looga sameyn lahaa labadan qeybood arkayso as a default haddii ay sidan ay ka qaatan yihiin waad saaraysaa tig baad saaraysaa saas u deynaysaa then waxaad leedahay save xogti markaa save aad dhahdo
aad aadid waxaa si automatically xogtii aad buuxisay qaybta kore ka arkaysaa. Kadib waxaad leedahay halkan new address leh. haddii aad rabto sidii hore u diin kartaa, haddii aad rabto qofku address cusub ku dari karaa, no problem. kadib waxaan leenahay pay now ayaa leenahay. xogtii waa ka inoo booda way inoo dhammaystiran tahay barootiyada oo dhan. kadib waxaan leenahay pay now ayaa leenahay. hadda waxaan biin doonaa lacagtii ayaa la biin doonaa. lacagtii baynu biinaynaa. marka si aynu lacagtii u bixino waxaan u baahanahay markaa qaybtan hadda inoo soo baxday. halkan waa payment method. payment method waxaa waaye kaarkaad wax ku bixin lahays. qaybtan marka waxaa gelinaa car informationka, yani physical ama mastercard qofka uu heliga kaarku hayso waa ku dalban doonaa. marka qaybtan waxaa gelin doontaa card numberkaaga, numberka AD kaarka ku qoran yahay ama mastercardka physicalka gelinaysa, taariikhda uu dhacayo iyo taariikhdii ayaad gelin doontaa. qaybtaas waa CVC ayay gelin doontaa, yani kaarka numberkiisa ayuu ku qoran yahay. then kaarka aad gelisay magaciisa, yani qofka ku qoran magaciisa gelin doontaa. then meeshaad Soomaali qoran almost wadanka aad joogtay ayuu ku qoran yahay automatically. uu kusoo baxay qofka wadanku joogo usoo saaraysa automatically. inta kadib marka xogta kaarka aynu gelino waxaan raaci doonaa pay ayaan taaban doonaa. pay markaan taabano si automatically wax yar baad sugi doontaa. then waxaa kusoo bixin doonaa formkan ayaa kusoo baxay, taasoo ka dhiga marka in si sax ah orderkii loo sameeyey, dalabkii si sax ah u dhacay.